sheekh Umar khudbadii uu jimcaha jeediyey ama uu gaf badan Soomaalida ka galay qabyaaladna muujiyay waxaan rabaa inaan dhowr qodob kaga jawaabo fiidiyogan khaladaadkan arkay anigu marka koowaad wuxuu ku tilmaamay dagaalkii sokeeye ee la dagaaltamay dawladii siyaad bare communistiga inuu dhahay waxa la mid tahay dagaalkii safa camal wuxuu sheegay nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam in ay laba kooxood oo muslimiinta kamidi islayn doonaan qodobka labaadna waxa weeye inuu dhahay kooxdii dagaalkii Soomaali weyn ka goosatay inuu ku tilmaamay inay ahaayeen khawaarijiin labada kooxood dagaalkooda dhexdooda waxa ka baxay khawaarij qodobka saddexaad haddana wuxuu dhahay khawaarijintaas waxay faafinayeen diin gaala dadkii bay gaalinayeen oo labadiiba intay ka dhex baxeen bay meel isku urursadeen oo labadii qoloba gaalaysiiyeen haddana wuxuu dhahay labada kooxood ee ku dagaaltamay dawladii isku haystay inay mid labadoodu mid u saxsanaa ka saxsanna uu dagaal ku qaadi doono dawladda khawaarijinta kooxda goonida u baxday saddexaad waxa la dagaalami doonta buu nabiga sallallahu alayhi wasallam labadii kooxood ee dagaalamayay hore midooda xaq u dhow ayaa la dagaalami doonta kooxda baxday buu nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaana la dagaaltamay khawaarijinta Ali ibn Talib iyo ciidankiisa iyo kooxdiisaba taasoo iyadana ka muuqato inay qabiil iyo reer ahaanba gidil isku wada tagi doonaan meeshan khawaarij waxa la dagaalamay Ali ibn Abi Talib iyo ciidankiisa iyo kooxdiisaba la dagaalantay wuxuuna haddana baaq dirayaa inay muslimiinta kale iyo Soomaalida kale oo dhan adduunka inay cadaadis saaraan sidii dagaalka loo joojin lahaa haddii la joojin waayana ina markaas cunaqabateen iyo qacan iyo dhiig iyo xoog lagu qaadaba sidii loo qaban lahaa qolada khaladka ku jirta markaas rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala haday kooxi diido heshiiska idinkoo kulligiina la wada dagaalamo marka baaqa kale haddana qabyaalinimada ka muuqato waxa weeye inuu dhahay dadkii ka soo qaxaya dhibaataysan waa in loo gurmadaa oo sida loo caawin karo loo caawiyaa haddii warkan idaacad ka tahay waajibka labaadi wax weeye dadka ku dhibaatoobay dagaalka isaga ku barakacay ku dhaawacmay ku baabay dhinacay doonaan ha jiraan in loo gurmado in la caawiyo in la daaweeyo banaan bay joogaan qorraxda ku dhacaysa kuleylka jira wada ogsoontiin hoy male in dadkaasi loo gurmado wixii la gaarsiin kara la gaarsiiyo iyadana waa waajibka labaad ina saaran markii raxaweynta lagu dhibaateeyay waqooyiga markaas muxuu baaqi waayay oran waayay hal la qaabilo hal la caawiyo sida awgeed waxaan uga talinayaa Soomaaliyeed inaan iska ilaalino inaan ummadda kala fogeeno oo mar walba ka shaqeyno wanaaga haddii ummadda la kala dilaayo oo la isku diraayo aakhira Ilaahay baan la su'aalaya aniguna run ahaantii mid jecel inay culimadu banaanka isku qabsato laakiinse haddii haddana khaladaadka la sixi waxa imaanaysa in fidnadu sii kordho aad baa u salaamantihiin